intii uu sii socday Yeruusaalem ayaa dad badan isaga kula kulmeen meel kasta dadkaas oo isaga weydiinayay in uu tuso jidka loo maro badbaadinta iyo in uu iyaga baro wax ku saabsan boqortooyada Ilaah runtii ninkaanu waa nabi sayidow macallinkaygow badbaadi dadku waxay bilaabeen inay aqbalaan sida sayid Yariixo waxaa jiray nin cashuur qaada ah oo magaciisu ahaa Sakhayos isagu wuxuu doonayay inuu Ciise arko ilaa uu fulay geed si uu dadka korkooda uga arko dhaqso u soo deg Sakhayosow waayo maanta gurigaaga ayaan joogayaa ma gurigayga yaa dooni lahaa inuu gurigiisa joogo Sakhayos muxuu ku gartay Ciise dhagayso waxaan siin lahaa kalabar waxaan lahaa masaakiinta oo haddii aan qof khiyaaneeyey waxaan u celinayaa afar laabkeed maantii guriga waxaa timid badbaadin waayo xitaa ninkani waa ina Ibraahim wiilka aadanu waxa uu yimid inuu badbaadiyo kuwa lumay